ereyga koowaad waxa waaye maadaama aan xalal u nolay azmadii ka dhacday hoteelkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeya meesha kasoo baxay aan laga soo saaray 8 saacadood oo azma ah aan ku dhex jiray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyey oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akriyey iyo wixii inoo muuqday oo dadku ku arkayna maalin kasta inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akrinay cabdiyadooda ku tacalluqan ka hadli jiraan laakiin xalay waxaan la noolaa ficilkooda iyo toos ah oo mubaashir ah waxaan isii daro ah dad dhalinyaro ah wasran dhalinyarada anigo arkay dad dhalinyaro ah oo soomaali ah oo islaam sheeganaya oo usoo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo carruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan xidinbiya lahayn inay baabi'iyaan oo ay laayaan usoo galay taasaan horta indhaha soo saaray waxaa kaleeto duruusta aan soo arkay kamid ah in qofku ajalkiisa u dhimanayo hadda soomaal iyo walaashan butola iyo sahra waxay nagu geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshe xumada iyo go-aan xumada inta meel la iska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in la iska xoreeyo dawladduna ay arrintaa hoggaamiso shacabkuna garab istaagaan arrintaas iyada ah marka duruusta xal aan ka faa'iidaysta waxaa kamid a nimankan qofkii ilaahay dila unbay dilaya khudbadii jimcihii soo dhaaf khudba jimcadan akriya iyaa ka hadlaaya shalay subaxi oo maalinta ugu dambaysa ay hadda hoteelka oo nabad looga soo kacayna salaada subax marka jimcada dusheeya iyagan ka hadlaaya marka qofka adduunka ugu necb yihiin waxaan malayna maanta sheekh nur baawridaani qofkay naga necbi ma jirto labadeena derbigii qolkii aan ku jirno derbigiisa nasoo istaagay haddana ma awoodin inay dilaan leannahu dilka xagga ilaah ka yimaadaa marka waxaan leeyahay marka qof kasta oo soomaali ah cabsida al-shabaab meel haska dhigto ha ogaata in eedinka loo dhamaanayso taasna waa dirsi runta aan soo qaatay oo aada u muhiim kan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab diin qaloocan hataa allah ka dhigay waa u qaloocantaha diintooda diin saxa ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaro 6 jirka ama 5 jirka ah ee ay dileen iyo islaamta aniga qolkii aan deganaa gabar soomaaliyeed oo nin odaya oo casiiz ah soo ziyaaratay oo ay dileen wasiir madoobe nuno u timid carruur yar siday ayay carruurtiina horteeda ku dileen odaygii ay soo ziyaaratay ee qiimaha badan horteeda ku dileen gabadhi waa soo carartay qolkiisa qolkii ku deganaa anugu aan deganaa aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ay soo gashay qolkii kula dilay marka yani inaysan marka arxam lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta yani nabi maxamed sal slam xataa mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta ee wuxuu kula dardaarmay laa taqtuluu nisaa'an wala alatfaal walaa asxaabu sawaamic dadka kiniisadaha isaga cibaadaysanayo dagaalka ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqayda ah iyo carruurta farax qaad wey haddaba markaa la dhaafay waa gaal oo weliba wiilashooda kula dagaalamayaan adiga oo gabdhaha haweenkaas raggooda ay ku dilaayaan ay gaala yihiin haddana la taaban maayo carruurta marka inaysan marka diinta sheeganayn shaqa ku lahayn taas sababtoo daliila iyadana darsi weyn oo soomaali ka baran karta waay darsiga afaraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaal yihiin maxaa yeelay nin markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaayo oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qabac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay nagu dhamaatay usheena ku dhamaatay waxbay turtuuraayeen magoyna turtuuraayeen marka ugu dambaysa runtii ayaga ayaa isdhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dilaa darsiga afaraad ama shanaad oo ka faaidina waxaa kamid a geesinimada dhalinyaradeeda soomaaliyada ciidamada ciidamada soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aada actif u ah xalay anigu waa fiirsanayay barnaamijka mar shabaab iyo annaga meesha isla joogna kaliya ciidankooda ka maqnaayeen gurmada ku yimideen mudda isla nooleen 2 saacadood ku dhadhow 2 saacadood kabacdi ay 4 geesi uga soo dhaceen uga soo daateen ciidamada markaasay iyagoon unaxayn ayay intay galeen meesha oo weliba qaybtay ugu nuglaayeen oo qaybta dambe anigo aan ku jiray jarjaro soo saarteen oo iyagu isku soo dul fuuleen oo si aad u tababaran waa fiirsanayeen gudaha usoo galeen ayay dabxid hoteelka dusha ay hoos uga sameeyeen markaasay dad aada u muhiim ahay oo qiimo badan ay kasoo saareen oo markaa weli noolaayo nafka ay ku jirtay dad badanna waa dileen oo maydkii way arkeen oo qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen ay soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysano laakiin hoggaankii la rabo inuu ciidankaas soomaalinimo inta la isu kaashado iyadoo far keliya leeyahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la rabo inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka oy niyadda u dhisaan haddii lagu xoojiyo dhalinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah oo aada u qiimo badan
oo dalkan xoreyta shaabna ka adag intaas waa duruustii runtii aan xalay ka faa'iiday anugu arrimihii aan la noolaa oo xanuunka badnaa oo aan ilaah ku hayay